The ambassador and the minister will unveil. Thank you very much. That's the plan. So, Secretary General, you can hear. Go ahead. I think so. We have only one. We can pull together. Oh yeah. Together. So with the yeah. So we can put this both at the same time. Yeah, at the same time. Can you one? And look this way, please look this way. Ready? Ready. What's not working? Two, three. Go. Receiving us, for receiving the European Union. We're very happy to be here in Villa Gaashaandhiga. Now this is a very auspicious time because it coincides as well with the appointment of the new Minister of Defense. And Honorable Minister, congratulations for your new appointment. This is a very central, crucial role, and you have a lot of challenges ahead. But I think the most important thing, before I introduce our Deputy Secretary General, that I'd like to say is that the European Union has been a long-term partner of Somalia. We have been here throughout the last 25 years, the very difficult times, and we intend to continue to be your long-term partner. We have been reliable over these years, and we will continue to support in what's a very important agenda of strengthening the security of Somalia, with the ultimate objective, as the DG said, of what we've seen in the neighborhood, of providing a better life for all Somalis. So if I can introduce our boss today, the Deputy Secretary General of the external part of the European Union. shaqaalaha wasaaradda iyo akhyaarta kale halkan joogta dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan anigoo ku hadlaya magaca golaha shacabka iyo kan guddiga difaaca sharaf weyn iyo farxad gaara inaan soo dhaweeyo wafdiga midowga Yurub ka socda munaasabadan dib loogu furayo xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee Villa Gaashaandhiga. waxaan jeclahay inaan si gaar ah
uga mahadceliyo Midowga Yurub maalgelinta mashruucan iyo kobcinta iyo kor u qaadista korjoogteynta madaniga. On behalf of the Parliament and the Defence Committee, it is a great honor and personal pleasure to welcome the EU delegation to this marking occasion of reopening Villa Gaashaandhiga, the headquarters of the Ministry. I want to also thank the EU for funding this project to enhance civilian oversight. waxaan jeclahay sidoo kale anigoo ku hadlaya magaca guddiga inaan halkan uga mahadceliyo hay'adda NIS Foundation oo si dhow ula shaqeysa guddiga difaaca iyo wasaaradda gaashaandhigga. gaar ahaan waxaan jeclahay inaan dhowr kalima ka yiraahdo safar wada jira oo xubno ka tirsan guddiga difaaca iyo wasaaradda ay ku tageen dalka South Africa taariikhdu markay ahayd 7 ilaa 12 bisha Agoosto 2017. safarkaasi waxaa suurtagelisay NIS wuxuuna ahaa socdaal faa'iido weyn u lahaa wafdiga waxaana ujeedada laga lahaa ee ugu weyneed ay ahayd in wafdigeenu wax ka barto waayo aragnimada dalka South Africa xilligii kala guurka iyo korjoogteynta madaniga iyo sida ugu wanaagsaneyd ee ay u wada shaqeyn karaan wasaaradda gaashaandhigga iyo guddiga difaaca. I would like to also, on behalf of the Defence Committee, talk about the good work NIS Foundation has contributed to building civilian oversight, to take a note of the latest trip that NIS organized to go to South Africa for an exposure trip, to show the impact civilian oversight has had in South Africa. It was a good trip, and we want to thank NIS Foundation for working closely with the Defence Committee of Parliament and the Ministry of Defence. waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan kusoo gabagabeeyo mashruucan wuxuu kusoo kordhinayo guddiga difaaca ee aan hadda magaciisa ku hadlayo. dhowr sanadood ka hor waxaan wada ognahay in wasaaradda gaashaandhiggu waxay ku shaqeynaysay dhowr qol oo ay ka deganayd Villa Somalia qolal ku yaal dhismo u dhow. maanta wasaaraddu waxay yeelatay xarun si weyn loo habeeyay ayna u dhan tahay agabkii iyo tiknoolajiyadii tan oo kaalin muhiim ah ka ciyaari doonta habsami socodka howlaha kala duwan ee wasaaradda. sidoo kale mashruucani wuxuu kor u qaadayaa in xiriir shaqo iyo iskaashi dhex maro guddiga baarlamaanka wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga. iyo ugu dambeyn mashruucu wuxuu albaab cusub u furay guddiga difaaca golaha shacabka gaar ahaan arrimaha la xiriira korjoogteynta madaniga. Talking about the program and the progress that the Ministry of Defence has made, the Ministry of Defence headquarters used to be Villa Somalia, and it didn't have enough space nor interaction with the other wing of the ministry, that's the military. Now they have a space and are closer to the military folks to provide civilian oversight that's the much needed to expand and to fulfill the vision and the mission of the Ministry of Defence together with the federal government of Somalia. So we are thankful that this project has brought together both the military and the civilian wing. mudane wasiir waad nasiib badan tahay adigoo wax yar magacaaban iyo dhismo noocaan ah oo wasaaraddii European Union funds ay ku kaalmaysay iyo iyadoo aan ognahay in security-ga ama nabadgelyada Soomaaliya la wada danaynayo in dib loo soo celiyo. waxaan rajaynaynaa in laga faa'iideysto dhismaha quruxda badan iyo qalabkan oo 24 saac shaqo ah idinkuna aad la wareegtaan hoggaanka dhismaha amniga Soomaaliya, dhismaha ciidankeena iyo sugidda amnigeena sida aad ula wareegi lahayd wasaaraddan iyo qalabkan inay u noqdaan saldhig. Minister, congratulations, you are new here and you got the opportunity to
to be in new offices and have the space to be able to do your work and fulfill your mission. We want you to take a lead, work 24 hours to bring the security and stability Somalia deserves, and take leadership in providing and building the armed forces. Conclusion, our commitment is that the Parliament Committee is planning to travel and meet with the Members Committee, State Members Committee, and conduct the awareness raising forums, which I hope EU intervention will assist us such activities. Ambassador-ka iyo delegation-ka kale oo la socda waa u mahad celinaynaa runtii EU waxyaabaha ay halkan ka qabatay oo wasaaradda gaashaandhiga ay u qabatay waa wax macno weyn ku fadhiya macnana u samayn doona wasaaradda gaashaandhiga qalabka halkan yaala dayactirka lagu sameeyay guud ahaan wasaaradda gaashaandhiga waxay wax weyn ka tari doonaan ma ay ka qayb qaadan doonaan hawsha u taala wasaaradda gaashaandhiga khaasatan dhinaca la shaqaynta dadka civilianka ah ama ciidanka iyo civilianka wada shaqadooda runtii waa wax lagu faano EU in mashruuc halkan tayadiisa ay dhan tahay ay u dhammaystiran yihiin wixii qalab ahaa oo casri ah oo maanta loo sameeyo ama loogu deeqo dawladda Soomaaliyeed waa arrin aad muhiim u ah annaga dhinacaanaga waxaan ballan qaadaynaa in qalabkan aan la dayacin xaruntan iyo qalabkaba aan la dayacin runtii arrintii kale oo aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay Soomaaliya burburka siduu u dhacay EU way support gareynaysay dawladda iyo shacabkaba waxaana lagu xantaa in waxa naga soo baxa percentage-koodii aad ay u yar yihiin intana la geliyana aad ay u badan tahay waxaan rajaynaa arrinkaas isbeddel in la samayn doono sanadka 2017 wuu dhammaaday waxaan filayaa mar haddii laga hadlayo isla xisaabtan ama corruption in la dagaalamo marka laga hadlayo transparency accountability laga hadlayo waxaan u maleynayaa isbeddel ugu yimid waxaan u ballan qaadaynaa alaabtan faraha badan oo lacagta faraha badan lagu bixiyay inaan la dayaci doonin insha Allah laga faa'iideysan doono waddanku wuxuu u baahan yahay human resource u baahan yahay dad wax bartay inay joogaan alaabta halkan aan ku soo aragnay waxaa lagu baran karaa wixii la doono waxaana loo sheegay contract in la bixiyay oo jaamacadaha ka mid ah halkan ay joogto si ay u barto shaqaalaha maadooyinkii loo baahnaa oo accounting ay ka mid tahay iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah in wasaaradda iyo ciidankuba ay ka shaqeeyaan marka runtii mar koowaad iyo labaad iyo saddexaadba EU waa u mahad celinaynaa aad u mahadsantiin These are the German cases administration of defense to exercise effective civilian control of the Somali National Army Force. Thank you very much. Again. How are you? Very good. Self-confident governance moving from Villa Somalia coming all the way down. Villa Somalia is that itself shows confidence. And this is not a funny place to come. You can prove Moi, c'est en ambassade. Yes, sir. This place, much far north, government culture was used to be surrounded in Villa Somalia neighborhood. Don't fight. They agree.
We are both the same. Now I dress like this and move around, go and up. And people know me when I'm going. Yurub, zoom. I'm the engineer from here for the cars. The other lane is in this lane is the exit. And we have in the beginning that the tower, the big one, which is made of huge steel. And the gate is also bulletproof with a very solid heavy. And there is some panels just behind here. You see the panels on top of that. So we have those lights. Oh, sorry, media. I used to be a photographer before, but I forgot. Still on. Background is vinyl,